xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa nidaamka daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka waxaanu wadnay in aanu ka shaqeyno si musuqmaasuq la'aan dalkan lagu shaqeeyo dhaqaalaha loo kobciyo in wasaarad walba doorka kaga aadan inay runtii ay ka qaadato marka wasaaradda gaashaandhigga doorka kaga aadana waxay ahayd in ciidamada Soomaaliyeed ay helaan xuquuq dhameystiran ay helaan si arintaasi loo hubiyana in aanu sameeyno wax xaqiiqo ah ciidanka tiradiisa inaan ogaano maxay ahayd mishaarka dawladda ee bixisa ma gaareen masamay gaarin iyo xuquuqda kale oo u leeyahay dawladda Soomaaliyeed oo ku leeyahay marka barnaamijka intaas oo ku saabsan runtii aan ka shaqeynaynay bilihii la soo dhaafay wasiir Colaad laakiin arinta dooda weyn dhalisay waxa ay tahay in la isku xiray mushaarkii ciidanku inay qaataan iyo systemkan la yiraahdo biometric oo la yiri askarigii aan biometric iska diiwaan gelinin wax mushaar ah ma leh maxaa isugu xirteen maadaama ciidankan ay hayeen ciidan dawladda u shaqeynayay walaalow runtii aadan ugu xumahay in sida loo fasiro shacabka Soomaaliyeedna si qaldan loogu fasiro waxay tahay anaga waxaan rabnaa inaan wax saxno markaan wax la saxaayna waa ogtahay wax mudooyin badan soo qaldanaa ama 10 sano soo qaldanaa markii la saxaayo runtii aad ay u xanuun badan tahay marar badan la isku dayay xukuumadan ka horeeyay isku dayeen in arrinkaas la sameeyo waxa loo sameyn waayay sida hadda dadka qaar ay si kale u fasirayaan ama si kale u ma jirin shuruudo lagu xiray in la yiraahdo ciidan askari sax ah xuquuqdiisa ma helayo ma jirin laakiin waxaan rabnaa dawladda Soomaaliyeed hadii xuquuqda askarta ay runtii wax weyn aysan la ahayn 2 sano ugu dambeysay waa markii ugu horeysay ee 2 sano xiriir ciidanka xoogga dalka xuquuqdooda bil walba ay helayeen runtii marka waa sax inaan go'aansanay in maxay ahayd la yiraahdo systemkan casriga ah la maraya ciidanka xoogga dalka anagoo marayna taliska xoogga dalka anagoo marayna taliye qaybeedyadii inta gobolada laga keenay magaalada Muqdisho la keeno seminar loogu furay si ay u wargeliyaan ciidankooda ee ugu sheegaan in maxay ahayd shaqadaasi la qaban doono soo socoto ciidanka xoogga dalkana inay runtii adkeystaan inta hawshaas laga